waxaan rabaa arinta oo hadda ka dhawaajiyay saaxiibkay Garyare oo ah madaxweynaha qeyladaani calacalka lugaha lahayaa oo leh 5 qodob waxaan la yaabanahay oo dib dastuurka ay kamid tahay oo dhismaha ciidanka qaran oo kamid yahay oo dhismaha maxkamada garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga ay kamid tahay oo doorasho qof iyo cod in la qabto kamid tahay oo dib u heshiisiinta guud gaar ahaan midda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kamid tahay yaa kan lagu qabtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa intaas sameeynina cid tiri ma jirto maya waa inta rabna in la sameeyo markay ku fashilmeen waxay leeyihiin lugahaana lahaaya lugaha sida la isku hayo anaga ma fahamsanin ba waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arinta doorashada waa waxa kaliya waa ku celceliya warkaas Soomaali intaan qaran dhismaha ku jirno damba hadeertaan waxa kaliya oo haysanay waxay ahayd 4 sano in la isdoorto awoodana si nabada la isku wareejiyo madaxweynaha hadda la doortay laba madaxweyne asii ka horeysa dhaxyaha ka istaagtay gacantiisa kor u taagtay macnaheedu maxaa waaye annaga awoodda waxaan uga tagnay si nabad ah dad badan waxaa arkay Sheekh Shariif dhaliilay war Sheekh Shariif annaga isbaysiga markaan hogaamiye jiray aniga asagoo maxkamadaha ka yimid anagoo diyaasbara ka tagnay oo ogeeda casmar isugu tagnay nin jabhado qor haysto ahay madaxweynuhu noqday qoraygu iska dhigay nidaam dimuqraadi oo sameeyay doorashada loo adkaaday assalaamu calaykum waa iska tagay nin qoray ku yimid oo ku baxay ballot box soo ma hayn wal ninka diyaasbara ka yimid ee raba inuu dadka qoray ku haysto ka waran soo wax la yaabo ma wadaadkii jabadka ay qoriga watay qoriga intii iska dhigo ballot box ku tagay dadka asigii eedayaan wiilkan kale diaspora ka yimid ee wadanka dimuqraadiga ku noola ee great America ku noola iyo wiilkan kale Norway ka yimid ee dimuqraadiyada ku noola oo qoryaha haysta dadku la yaabay maayaan waxay eedeynayaan wadaadkii baashi nabada ku dhigay oo haddana la war dastuurka rabnaa anaga markaas culimo la soo kireystay mid boorama ka soo qayliya mid boosaaso ka soo qayliya mid ka soo qayliya maxaan ku sheegahay Kenya ka qayliya waxa gay jireen markay beedhaw dadka lagu xasuuqay culimadan waxa gay jireen markii anaga la soo weerarayo dhalinyarada la kaleeyay waxa gay jireen markii hubka la isugu dhiibay Puntland waxa gay jireen marka hadeertaan gado hubka dadka la isugu dhiibay xagee jiraan may ka hadlaan kuwaas waxa la yiraahdaa ulama usulda dawladahan aan ku noolnahay markay iska xoreeyeen kuwaas ay dimuqraadiyad gaareen sababtoo kitaab wajabka ku wata ninkii shilimaadka si uu fasiraa wayna si qabanaa kuwaas kama hadana adduunkiina hadda kamera iska sahlanatay Facebook meesha iska dhigana anoo sheekh hebel garkiis intaas uu leeyahay war sheekh waxa la yiraahdaa kalimatu haqqin عند سلطان الجائر جهاد وين متقانين وكلمات حق او سلطان قبض فلاي لو شيغو كاسو شيغا كعليه ددكا تو 2 مليوناتين oo dimuqraadi ku hoos nool adduunka digital media lagu jira macluumka markuu soo dhaco wadamadii xoog lahaa ee dictatoriyada muruqa lahaa ayaa noolaala nin hadda raadinayo waa lunsan yahay ninka saacada xoog wadaniin dhisa waa lunsan yahay xoog wadani Soomaaliya kama waxay ku jiraan shaqaalaha dawladda rayidka kuma jiraan ciidanka xoog dalka Soomaaliya kuma jiraan adeer hay'adda meel ku jiraan male adeer xoog wadani ninka saacada wax xaraam u maleey jirna madaxweynuhu la taaganaa ma aragnaba oo waxa la yiraahdaa xataa diaspora geynina war dadkan diaspora dimuqraadiyada ku hoos nool xoog wadani ma yaqaanaa mana aaminsana Soomaaliya 2 milyan dimuqraadi ku hoos nooshahay adduunkan digital media meesha mara u jeedaan oo wax la qari kara jirin oo dawladihii waaweynaa ee taagtaagnaa ee Tunisia lahaa ee Masar lahaa ee Syria lahaa ee dictatorada ugu waaweyn ay taagnaayeen oo hadda Bolivia ugu dambeeyay si kala tageen ninka qofka ku riyoonay inuu dhiso xoog wadani maxaa kale oo jiro idinkaad ogeen intaqaan ciidamada ilaalada shacabka la yiraahdaa Eritrea lagu soo tababara waa kun nabasuuda askale ayagana ma dhabar jabintii hangishtii wixii la sheegi jiray I don't know wuxuu ku leeyahay taliyaha nabad sugidda waxaan sameeynaynaa ciidamada ilaalada shacabka oo shacabka la ilaalinaa maxay ciidamada xoogga wadaniyiinta
xoogga wadaniyiinta markay ay dhibaato qabsato shabaab u dacwo tagaan shabaab isku dacweeyaan